dagaalka al-shabaab wuxuu isugu jiraa dhinacyo fara badan dhinacyada lagula diriro oo dawladda Soomaaliya ay kula dirirayso waxay ka samaysatay istaraatiijiyadii iyo sida looga shaqeyn lahaa cid ka shaqeyn lahayd iyo dhaqaalihii looga shaqeyn lahaa tabaheedina way isdaba socdaan mid waa midda militariga oo hadda dabcan ay laga wada raayo media-da ku jirtada mar walba mid waa su'aasha ay weydiisay oo ah dhulka magaalooyinka ah sidee looga nabadgeliyaa amniga magaalooyinka waaweyn ayaa qodob kamida waaye istaraatiijiyada qodob kaleeto sidii dhaqaalaha looga naafayn lahaa waxa tactics ka isticmaalaan oo dhan ay dadka yani ay awoodaha ku sheeganayaan oo dhan ayaa mid walba sidii looga hortagi lahaa qorshe laga dhigay mid waa been abuurka ay diinta ku samaystaan oo arrimaha marka ideologiga iyo mid waa propagandada caadiga ah oo ay maaragtay dadka ay strategic communication ka la yiraahdo iyo midda u dambaysa oo ah stabilizationka degmooyinka marka la xoreeyo tuulooyinka marka la xoreeyo inay ka kabsadaan oo noloshii caadi u soo noqoto ay maaragtay dawladnimada ay u bogaan lixdaas tiir ayaa lagula macaamilaa laakiin midka mar walbeeto ee shacabku maqlaan ama ka warhayaan waa tiirkaas koowaad oo dagaalka oo dabcan asal wada ah haddii aanan dagaalka la fogeyn lahayn tusaale kii magaalooyinka lagu sameynayay waa adkaan lahayd haddaan la fogeyn lahayn anshuurtii in maaragtay ama baadii in laga joojiyo way adkaan lahayd marka tiirarkaas waa tiirar iswada kaabaya oo mid walbana wasaarad ayaa hogaamisa oo wasaaradda warfaafintu ay mid kamid ay tahay door waxaa jiro iyadana amniga ama dagaalka lagula jiro laftiisa oo dawladda Soomaaliya ay bulshada inay abaabusho ah oo doorka ama macawisleha loo bixiyo ama magac kale loogu yeeray doorkaasna maxaad isleedahay dawladdu way u dooratay طبعا dagaalka inkastoo ay dawladdu hogaaminayso dagaalka waxay dawladdu ugu jirtaa shacabkan in uu nabad ku noolaado shacabka nasiib wanaag Soomaalida ah gaar ahaan inta reer miyiga ah dad already qoryo iyo inay haystaan iyo u abaabulan oo si ay xoolahooda u ilaashadaan dhibka iyagu soo gaaray shabaab marka waa dadku waa dad gob ah waxay dareemeen in la gumaysanayo ama la gumaynayo dawladdu marka in ay shacabkii iyo dawladda inay isku dan yihiin inay shacab ka dhaadhiciso oo ay qoryihii rasaas ugu shubto dhaawacoodii ay maaragtay isbitaal la keento waa whole win-win situation ah dawladduna waa shacabka shacabkuna waa dawladda